السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واندين سلامي مالنكي لباد وحام مقن قلبكي أن كشقي سنيني oo madaxtooyada Hirshabelle dhex yaala waxaan mar labaad ugu baaqayaa hay'adaha ka shaqeeya xuquuqul insaanka iyo dawladda federaalka Soomaaliya in qalabkayga la iga siiyo madaxweynaha dawladda Hirshabelle oo xafiiskiisa ay dhex yaalaan qalabkii aan ku shaqaysanayno waxaan ahay wariye madax bannaan ma ihi wariye ka shaqeeya propagandada iyo faafinta ama xayeysiinta madaxweyne Maxamed Cabdiwaare waxaan tabiyaa xaqiiqaadka jira waxaan rabaa in xog yar idin la wadaago waxa la ii sheegay in la igu haysto oo shalay la igu dilay alaabtaydina loo qaatay warbixin aan ka diyaariyay laba dhibane oo madaxtooyada Hirshabelle dhinaceeda degan oo dhul beera ay ku lahaayeen awow madaxda dawladda Hirshabelle ay ka codsadeen in dhulkoodii ay ka iibiyaan ama ay ka siiyaan dhulka xilligan waxaa degan ciidamada Amisom ee qaybta ka ilaalada madaxtooyada warbixintaas aan tabiyay awgeed ayay ahayd wixii shalay la ii jir dilay iyo warbixino kale oo ku saabsan xaqiiqaadka ka jira Hirshabelle oo aan soo tabiyo alaabtaydii way maqan tahay waxaan si aan codsi ahayn u dalbanaya in alaabtayda la ii siiyo waayo waa xuquuq aniga aan leeyahay